Wacan wanaagsan daawadayaal meel walbood nagala socotaan halkani waa Ummadda Production kusoo dhawaada mid ka mid ah barnaamijyadii aan halkan inkaga soo jeedin jirnay. barnaamijkeena maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa waxyaabo fara badan oo aan isleenahay waad ugu faa'iideyn kartaan daawadayaasha idinkala xiriira bartan. barnaamijkeena inta badan maanta waxaan diiradda ku saari doonaa shimbirka la yiraahdo gorayo, waxyaabaha aysan inta badan dadka ka aqoonin, innagoo u isticmaalayna daawade ma og tahay. aynu ku bilownay qodobka ugu horeeya. ma og tahay daawade in gorayadu aanan duulin oo ay tahay shimbirka ugu weyn shimbiraha koonkan ku nool, haddana saa ay tahay aysan duulin. mase og tahay daawade in gorayadu leedahay 3 caloolood oo gudaha uurku jirteeda ku jira. daawade ma og tahay si ka duwan dhammaan shimbiraha kale ee koonkan ku nool in gorayadu ay kaadido oo aysan kaadideedana ku dhex milmin saxarada sida shimbiraha kale. mase og tahay daawade in gorayadu tahay noolaha ugu dheereeya dhanka orodka shimbiraha iyo xayawaanka kale ee labada lugood ku socda sida aadanaha. waxa ayna ordi kartaa shimbirta gorayadu masaafo dhan 70 kiiloomitir halkii saac. ma og tahay daawade in gorayadu waxa ka caawiya inay sidaas xawliga leh ugu ordaa inay yihiin labadeeda lugood oo ay ku yaalaan keliya 2 suul, halka shimbiraha kalena ay leeyihiin 4 suul. mase og tahay daawade in baalasha gorayadu ay ballac ahaan gaarayaan 2 mitir marka la fidiyo. waxa ayna u isticmaashaa inay ku ilaashato ilmaheeda iyo sidoo kale inay u isticmaasho marka ay leexanayso, maadaama xawaare aad u sarreeya ay ku orodo. mase og tahay daawade in gorayadu cararto markii ay naxdo keliya, inkastoo labadeeda lugood ee dhaadheer ee xoogga badan ay noqon karaan hub aad u adag oo awood u leh inay dilaan bini'aadamka ama xayawaanka sida libaaxa, laakiin ayadu waxay u isticmaashaa inay ku cararto. sidoo kale ma og tahay daawade in gorayadu ay caado ahaan bilaha jiilaalka ah ay u socoto hal ama labo, halka bilaha kale ee aaranka ahna ay isula socdaan raxan sida reer guuraaga, ayadoo tirada ugu yar lagu qiyaaso 20 ilaa 50. sidoo kale daawade ma og tahay in dagaalka u dhaxeeya laboodka gorayadu uu yahay mid uu sababay dhadiga, sida aadanaha oo kale labka gorayada waxa ay isku dagaalaan dhadiga. taasna mararka qaar waxa ay sababtaa in mid ka mid ah laboodka uu dhinto kuna dhinto dagaalkaasi. sidoo kale daawade ma og tahay in ukunta aadka u weyn ee gorayadu dhasho ay tahay tan ugu culus ee shimbir koonkan ku nool ay dhasho. dhirarka ukunta gorayadu waxa ay gaartaa 15 sentimitir, halka miisaankeedana ay gaarayso ilaa 20 ama 30 ukunta digaaga oo la isku daray. mase og tahay daawade in marka ukunta gorayadu dilaacdo 35 ilaa 40 maalmood kadib labka gorayadu uu caado ahaan difaaco
dhallaanka yar ee ukuntaasi ka soo dhex baxay, sidoo kalena uu baro qaabka wax loo cuno. Inkastoo labka iyo dheddigaba ay wada ilaaliyaan dhallaankaasi. Daawade, ma ogtahay si ka soo horjeeda caqiidada caanbaxday in aysan gorayadu madaxeeda ciidda ku duugin, balse ay samayso inay madaxeeda hoos u dhigto marka ay aragto waxay ka cabsato ama ay shay ka gabanayso. Daawade, ma ogtahay in gorayadu qowmiyadaha adduunka oo dhan ay tahay shimbirta ay wada yaqaanaan in ay faa'iido leedahay, qowmiyadaha qaarna ay dhaqaalaystaan sida kuwa ku nool Latin America. Mase ogtahay daawada in gorayadu aysan ilka lahayn, laqitaanka dhagaxda yar ama quruuruxana uu ka caawiyo dheefshiidkeeda in wixii ay cuntay uu shiido. Gorayada qaangaarka ah bishii waxaa la qiyaasaa inay isticmaali karto 1 kiilo oo dhagax si ay dheefshiidkeeda ugu caawiso inuu raashinkii ay cuntay shiido. Ma ogtahay daawade in gorayadu joogi karto biyo la'aan dhowr maalmood iyadoo isticmaalaysa biyaha dheefshiidkeeda ku jira ee kiimikaysan iyo sidoo kaleeta qoyaanka xididadeeda. Mararka qaarna ay isticmaasho miraha iyo cayayaanka yaryar si ay uga hesho dheecaan. Ugu dambayn, daawade, ma ogtahay isha gorayadu inay ka weyn tahay maskaxdeeda? Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii maanta ee ahaa maxaad ka og tahay. Waxaana ku soo qaadanay xayawaanka la yidhaahdo gorayada. Tan intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale ah, anigoo Axmed Maxamed ah oo inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.